حسن الشيخ محمود ayaa waxa ay wasiirada la socday ayaguna kulamo gooni ah la galeen madaxda ugu sareysa wadanka Mareykanka waxaanu telefishinka qaranka Soomaaliya u suurta gashay in warbixin siiyo wasiirka gaashaandhigga ee dawladda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xamuud maraan wax ka weydiinayna sida ay maanta kulamadii ay la galeen madaxdaasi waxaana uu ku jawaabay sida tan بسم الله الرحمن الرحيم هدي أن كهر مرة كل ماذا مانت مدحوينها ساكي صبحي مدحوينها وحو باقشد أورس وكتجي حرنت لجمع مل إذا عدا VOA أو أيضا إلى دور يصدن لغات كبحدة أو الصوماليين الآن كم إذا ماشي كل هذا مدحدي يشغالي وماشي يسكسو وهذا الكسو يشين أيقول لهم هذا علنا يصير أي u kabar gareeyaan wararka Soomaaliya ku saabsan markuu kulamadaas uu soo dhameystay kadib wuxuu wariyaasha uu kula hadlay xarunta USIB-ga oo uu ku siiyay xaaladda guud ee Soomaaliya ee ku sugan tahay markii kulankaas la soo dhameeyay waxa madaxweynaha uu ku soo laabtay hoteelka uu deganaa magaalada Washington ee Xayaat baarka Xayaat DC Washington hoteelkaas waxa balan lagu lahaa oo noogu imaaday General Rodriguez oo ah generalka ciidamada Afrika ka howlgala ee Mareykanka madaxda ka ah runtii qaabilsan dhinaca Afrika oo dhan wada hadaladana dhaxmarna waxay ku saabsanaayeen sidii xiriirka wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya oo horay xiriir u lahaan jireen intii dawladii hore aysan burburin sidii xiriirkaas loo soo celin lahaa sidii ay nooga gacansiin lahaayeen maartay yani dib u dhisidda ciidamada qalabka sida runtii Mareykanka waa qayb fiican ayuu ka qaataa xagga logistikada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qayb kamid ah mushaaraadka ciidanka oo xoogga dalka uu siiyo marka runtii wuxuu ahaa kulan aad iyo aad waqti badan qaatay laakiin yani isku weydaarsaday yani fikrado oo labada dhinac ah markii kulankaas dhamaaday kadib waxa hadana galabta la aaday meesha la yiraahdo Congress-ka aqalka sanadka oo halkaasayto dhammaan madaxda Afrika ee ka soo qayb gashay shirkan oo sida aad la socotaan shirka America iyo madaxda Afrika yani madaxweynayaasha ka soo qayb galay iyo hal wasiir oo la socda madaxweynayaasha oo aan ka mid ahaa waxaa la tagay reception oo 2 saacadood qaatay oo reception-kaas oo ahayd in laga wada hadlo Congress-ka iyo Senate-ka oo ayaga u qaabilsan xagga shuruucda ansixinta oo barlamaanadooda kala ah in maartay yani sidii Afrika iyo America ee mar labaad ay isugu xirmi lahaayeen ee America ay qayb badan ay ka qaadan lahayd xagga maalgelinta dhinaca muxuu ahaa haday ahaan lahayd yani ganacsiga haday ahaan lahayd dhinaca beeraha haday ahaan lahayd dhinaca dhalinyarada yani arrimo badan ayaa la soo qaaday waa ka soo baxnay haddana madaxweynaha wuxuu mar labaad uu aadi doona casho oo isla Congress-ka ka dhici doonta marka qorshaha madaxweynaha ilaa intaas uu caawa ku agyahay waxa kale oo ayadana maanta jiray kulan lala yeeshay galabta yani ku-xigeenka under secretary-ga u qaabilsan siyaasadda wadanka Mareykanka haweeneyda la yiraahdo Wendy Sherman oo ayada qaabilsan siyaasadda oo ku xigta secretary John Kerry ku xigta marka ayadana kulankeeda markano saacad buu qaatay oo laga siinay xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay marka runtii kulamadaas ayuu madaxweynaha yeeshay waxa kale oo intaas barbar socotay kulamo saaka ay si gaar ay u yeesheen wasiirka maaliyadda Xuseen Xalane oo asaga ka qayb galay yani panel oo discussion loogu sameeyay new deal-ka oo ay ka qayb galayeen dawladaha Afrikaanka ee sideen oo kale oo hadda yani tubta yani higsiga cusub u bilowday arrin noocaas ayaa jirtay oo lagu mashquulsanaa waxa kale oo jiray wasiirka arrimaha dibadda asagana maanta wuxuu jiray akademiyada siyaasadda ayuu jiray oo asna yani warbixin ka jeedinay waxa kale oo wafdiga kamid ah wasiirka batroolka Daawud Bisle oo asna kulamo gaar ah la yeeshay marka runtii waxaad moodaa iska yani programada la dejiyay inuu sin aad iyo aad u mashquulsan yahay
oo level dhaxa laga bilaabay ilaa levelka hore berito wixii ka dambeeyna geli doona haddii ilaahay idmo. marka wasiir sidaad u aragtiin marka shirkan aad timaadeen isla markaasina uu yahay shirkani shir lagu casumay Afrikaanka madaxdooda oo dhan dalka Mareykanka ay ku casumeen marka maxaa idin kaga baxay marka aad fiirisaan marka maxaa u maraynaysaa inaad idin qabsan doonaan anaka waxaa noo qabsoomay runtii muddo 10 maalmood ka badan waxaa halkan ku sugnaa wafdi hordhaca oo ka socday madaxtooyada raggaas iyo safiirka cusub ee Soomaaliya mudane Umar Abdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxay aad iyo aad ugu howlanaayeen sidii barnaamijkan intuu socdo oo 4 maalmood ah in waxa anaka danteena ah iyo dadka anaka aan daneynayno oo ka tirsan dawladda Mareykanka inaan si gaar ah u aragno marka sidaas darteed ayaad waxaad ka garanaysaa yaani wasaaradda gaashaandhigga wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda maartay yaani muxuu ahaa batroolka iyo macdanta inta maartay qolo walba barnaamijkeeda si gaar ah ayay u haysataa midda madaxweynaha aan nagala dhaxayna iidan waa isku jirnaa marka runtii sideline meeting waxa la yiraahdo ayaa aad iyo aad anaka maanta yaani aan aad ugu mashquulsanahay oo ilaa iyo jamcaha inta halkan aan joognana aan ka shaqeyn doonaa marka waxaan isleenahay marka waxa anaka ujeedadeena ay tahay waxa waay inaan fariin shacbiga Soomaaliyeed aan ka wadno dawladda Soomaaliyeed aan ka wadno anaka wakiilka ah soo gaarsiino madaxda dalka Mareykanka oo ah in Soomaaliya maanta ay u soo jeesatay inay maartay ay dib isu dhisto in ay maartay khilaafaadkii faraha badnaa ay iska dhaafto in ay la dagaalanto nabadiidka in intaasoo dhan ay ku imaan karaan in anakana kalsooni la siiyo oo na loo arko dawlad rabta inay u adeegto ummadeeda inaan nahay marka runtii ilaahay hadda maanta waxyaalaha noo suurtoobay waxaan dhihi karaa yani marka aad dawlad la hadlaysid يعني جوابته هاي ما مركب ما إماته لكن أنا أديك فكرة ده صوب بنكتت وجدة أتكلمها صوب بنكتت مركا أديك أسكت أنا كقن عسدت كاس إنا فكرة ده قاتها مركا رجب بدنا وكلنا كلي يعني ده بدنا أيجري أنا تسكو أدن. وزير runtii shacabka ku daawanaya oo adigu aad u tahay wasiirka gaashaandhigga waliba ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku daawanayaan maxaad u jeedin lahayd marka fariinta ku aadan aad hawada u marin lahayd maxay tahay fursad ka faa'iideysanaya waa mahadsantahay runtii de markasta anaka saxaafadda soo hor istaagno runtii anigu waxaan u duceeyaa ciidamada qalabka sida intii ku dhimatay muddadii lagu la jiray halganka nabadiidka ilaahay ha u naxariisto jannadiisa ka waraabiyo inta dhaawacna ilaahay ha bogsiiyo ummadda Soomaaliyeed markaan ku hormaro waxaan leeyahay ciidamada amniga la shaqeeyo ciidamada wax badan ayay qabtaan yaani duruufo adag ayay ku sugan yihiin daryeel la'aan badan ayaa jirta yaani mushaar xumo badan ayaa jirta runtii haddana waa dad u taagan inay cadowga ay ka difaacaan shacbigooda waay marka in gacan la siiyo biyaha loo qaado yaani muxuu ahaa cuntada qalalan loo sameeyo laga gaarsiiyo waa jeclaan lahayn oo frontiga ciidamada ku jira saas loo gacan siiyo waxaan kaloo ciidamada leeyahay runtii waad guuleysanaysaan maanta ummadda Soomaaliyeed waxay u soo jeesatay nabad yaani nabadda inta doonaysa maanta yaani 100% wax walba ka badan marka inta yar ee ilaahay maartay dhumiyay wali rabaan inay ummadda wax yeelayaan waxaan leenahay ilaahay ayagana soo hanuuniyo laakiin waa ka adkaan doonaa Soomaaliya waxay rabtaa xaq ay u leedahay inaan nabad ku noolaato inaan kula noolaano waana dadaalena waana u maqannaa ciidamada qalabka sida aan yaani daryeel loogu heli lahaa safar kastoo soo aadno madaxweynaha ilaa ra'iisul wasaaraha ilaa wasiirka aniga ah intaba waxa aan markasta aan hordhigno waxa baahida ciidamada qalabka sida waa runtii rajo badanna waa leenahay intaas waan loo dul qaadanaa waxaan kula rabaa inaan u tacsiyeeyo aan cambaareeyo farkii maanta ka dhacay magaalada Boosaaso ku saabsanaa maartay lagu dilay saraakiishii ciidamada booliska runtii inta dhimantay Allah u naxariisto inta dhaawacantay ilaahay hadaa waan leenahay fal argagixiso ahaa gacan ka gardaran ayaa dishay waa ugu tacsiyeyna maartay yaani muxuu ahaa reer Puntland hadii ilaahay idmo marka runtii yaani la dagaalanka argagixisada in meel lagu soo wada jeesto waay in gacanta la isqabsado waay in laga wada shaqeeyo waa sidii ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto nabad ay ugu noolaan lahayd si kastaba ha ahaatee wafdigan uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wali kulamadiisa aan fari ka qodneen beritoole ayaa la filayaa inay kulamo kuwii ka darnaa ay sii gali doonaan madaxweynaha iyo wafdigiisa shirarkan halkan ay u joogaan Washington markuu uu dhamaado maalinta bisha aanu ku jirno September 8 ayaa waxa la filayaa inuu u kactimo
gobolka Minnesota waa gobolka Soomaalida ay aadka ugu badan tahay dalkan Mareykanka isla markaasina halkaasi ay jaaliyad aad u fara badan ay soo dhaweyn xaflad ay ugu sameyn doonto Liban Hussein telefishinka qaranka Soomaaliya Washington